هذا ولا بسم الله الرحمن الرحيم. جبتك سنا سلام جبتك سنا صوت هذا ولا اوكي بين وصلنا نقدر نجيدي ها صوت هذا سيشر جراي صوت هذا كان ما صوت هذا ولا صوت هذا سيشر جراي صوت هذا ولا Sinjiga mamermo ene sumada magurto Jayele madalo Jabuta kasina salam Soda wada wala soda wada Aska bilabanayna khalaas walaalayaal Sugayay saadadinayay صوت هذا ولا لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله الملك استاد على الدنيا كجوكتين كسر دواد النبدي تي في ونقرأ لي قلنا يا مرديدي ولا لا ونقرأ لي قلنا يا رالي هذا دنا يروي قارة شخصيان تذا يقوم مقنع آدي ولا ليال ونقرأ لي قلنا إن شاء الله مرديد الدم بواسوق لي هدو إلهي راوسي عدد النوع إن شاء الله يوتيوب كنا مسؤول جدونا فيسبوك كنا مسؤول جدونا فيسبوك جيمي كمان كجرا دتك يوتيوب كنا سبسكرايب لايك شير ولا ليال برنامج كنا إنت هورت بلابين وحنا هم بليان إننا مدحوينها إسلام كتركيا أردوغان ولا كل ما مدحويني كلب بالورن كريا النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أفلاقادي كاريكاتير كسميي مركز كل من حتى يسوي جديد إنه السلام حتى مركي لو ورستي اللي جاي يريد دبلوماسية دكومة جرتو لما مدحويني مركي كل مان إنها سلام تدوي جان مدحوينها فرنسيسكا وحكوا جواب مركها من آخر دمتو نبي محمد سيدنا واركيا عليه الصلاة والسلام مركا ورك ركتجي مدحوينها تركيو أردوغان بل ونداوسين يا ولا ليال رالي قلنا واقب حنايا هدونا صدايا تو مركان عد كاشدو waxay barteen ba Facebook lama imikayna 5 bilood inuu xirnaado ee waxa loo joojinayo walaalayaal YouTube ka download gareysta ee ila daawada bal bismillaahir rahmaanir rahiim tahzan inna Allaha ma'ana korkma çekinme üzülme üzüllenme yeyse kapılma Allah bizimle beraberdir dedi. turkiga waan ambalyeynayna ma sha Allah waxa islaamka oo dhan ku farxeen walaaleel sidoo ogsoontii markan waxa ay kala anigu soo dhiga shakhsiyaanteeda dadkana gaaladan aad aragtiin dhulkan lagu leeyahay freedom for speech baa jira xorriyatul qowl baa jira waxba kama jiro hadaan uu ku soo horjeesto cirka kula maray waa ninka arkaya kan waa Facebook muddo 5 bilood
gaaraysa waka وحرقين محد وحرين whatever walaalayaal looma joojinayo waxa ma waxaan doonayaa walaalayaal inaan nin sheego horta nituso kana darkaysiin waa maxamed suutiyan la yaqri wala la yaktub waxbana ma qoro dhikan waxbana ma akhriyo walaalayaal saad ogsoontiin islaantii qoomaluudka wadatay ee canfarta ugu aqli badnayd iyo walaalayaal passportkeygii soo dhigeen baraha bulshada kana darkaysiin maxamed suutiyan aan nin sheegay nitusay walaalayaal wallahi billahi waxa ma qoro waxbana ma akhriyo duudu vale kol ma qori karayo waxaan darkaysiin sirdoonka u soo dhigay waa islaantii qoomaluudka wadatay ee canfarta ugu aqli badnayd weejaan kan waa passportkeygii ingiriiska iyaan jeclahay reer Soomaaliya ku dhiibantahay imika ahaan reer Soomaaliya ku dhiibantahay kana waa passportkeygii reer Djibouti walaalayaal dagaalka inta leeg waxa ugu soo qaadeen maxay tahay muddo aan sheegaynay anigoo oranaynay fruitka qolooyinkan fruitka waa waxay dawladdu sanaysatay inay tamarkii walaalayaal doonayeen inaan inaga dhaadhiciyo inaka dadka shicibka reer Djibouti qoladii fruitka iyaa ka samaysatay saldhig Addis Ababa la wala ordeen maadaama dadka reer Djibouti waxa moodaa dad aqli badan lahayn oo dhaquraata leh walaalayaal sidaad ogsoontiin walaalayaal fruitka iyo dawladda Djibouti way isla shaqeeyaan fuaad waxa soo gabagabeeyay waa odayga ee ka dhacamay in daayeerku markuu weynaado walaalayaal waxa la yiraahdaa Soomaaliga luqadda Soomaaliga daaxuur baa la yiraahdaa daayeerku markuu weynaado odayga baa soo gabagabeeyay islaantana darkaysiin canfarta ugu aqli badan imika waxa isku dhacsan yihiin odayga daaxuurka fruitka wata iyo Daahir Axmed Faarax shalay markuu qoomaluud ku watay nabadi TV uu sheegay inay qoomaluud wataan maantana walaalayaal islaanta sida darkaysiin qoomaluudkii bay qaadatay qoomaluudkuna badda inta lag ilaahay azza wa jalla walaalayaal wuxuu ku dhaariyay haday soo dhaafto link baddu ku joogto haday soo dhaafto walaalayaal sida laba dikir oo isfuulay nin fuulay iyo naag fuushay way ayaa lagu cadaabaya qoomaluudkuna iniyo European walaalayaal lacag bay ku bixisaa waxan walaalayaal noocana aad arkaysiin shalay Daahir Axmed Faarax iyo emirdeeda waxa qoomaluudka watay ilaahay uu baabiyay islaanta shakhsiyaantayda maamada canfarta ugu aqal badan wax badan oo ciisuu annaki maxamed cawaalo u sheegno waa maasanay oran jireen ayay markay naga daba qaadato aamini jireen anigu waan ku ambaliyeynaa wali waxaan ku ambaliyeynaa tani fruitka aan sheegnay sida u qaawisay maanta wuxuu ilaahay nacladay iyo wadataa iyaduna way nacladaysan tahay inta walaalayaal zaani buu wataa qoomaluud qofka faraha la gala waa nabaday waa gabagabo marka islaanta canfarta ugu aqli badan dhinaca baan kaga baxayaa me odagii Umar Cilmi Khayre halgamaagi iyo dhulka jiido walaalayaal dhulka Umar Cilmi Khayre odagana darkaysiin ummadda Soomaaliyeed waa dadkii qaranka Djibouti u soo dhintay ee Faransiiska ku xidhnaa Umar Cilmi Khayre la yiraahdo odagan dambas weyne waa ninkii basaaskii Cali Caarif ee Ciise Halaayay waa ninkii AK47 la dul joogsaday markuu ku dhifay u dhici waay waa nin horona waa dadka Djibouti ku aftirsada hadduu Ciise Landeere laana waa dad Landeerayaasheeda hadduu lahaan lahaada ma Ciise oo wada Ciise nin caarama dheer weejaan odagana darkaysiin walaalayaal waa la qaawiyay miskiinka qolooyinkii qoomaluudka iyo islaanta qoomaluudka wadataa soo qaxaysay ku reer Soomaaliya oo iska jaahilo waxba aqoon iyo balaayo looga dhigay adeer Umar Cilmi Khayre adduunkan heer waxa lagu gaaraa kalsooni wallahi oo billahi Maxamed Muuse Turtur 5 sano horteed buu ii sheegay odayga abtina waanu nahay aniga shakhsiyaantayda 5 sano horteedna waan ku wareystay adeer macaan waan ku wareystay mid quraatan kaaga gaabsado kugu diiday su'aalada waan isla eegaynaa aniga shakhsiyaantayda adduunka qof soo casuumado barnaamij ugu soo casuumado wuxuu doonay weydiin karaya waan uga jawaabay ma qofka hadduu mar ani iga yiraahdo shakhsiyaantayda su'aalada waan isla eegaynaa waxa ma jeceli saaban kaaga gaabsada adeer si kala maaha ma adeer imika shakhsiyaantayda Umar Cilmi Khayre waan ku digayaa islaantan kharriban ee qoomaluudka wadata shalay Daahir Axmed Faarax iyo Daaf iyo waxaad ugu ordayseen waa qoomaluudnimo oo Maxamed Rabaash ka sheekeynayay qoomaluud yihiin annagu dadka uma wal kala eexano Daahir Axmed Faarax waa nin tolkay weejaan waan abtina u ahay adigana abti ku yahay marka abti islaanta kharriban ee qoomaluudka wadata adeer iskaga had waan ku digayaa Ciise marxaati waa ka tiin Cusbayaan marxaati waa ka tiin Danaakilo marxaati waa ka tiin Horono marxaati waa ka tiin odayga adeerkay halgamaaga islaanta qoomaluudka wadata hadid gabagabay ku jirtaa ee adeerow iskaga durug
aad iyo aad dhinaca baan kaga baxaynaa walaalayaal waxaan doonayaa inay ila wadaagtiin video hooyo dhibaataysan oo joogta maxay ahayd Soomaaliya oo cudurka AIDS ku dhacay bal dhibtay qabto iyo dadku siday u takoorayaan ee u cusriyeynayaan bal ina ila yar dhageysatiin baan rabaa walaalayaal maanta barnaamijku aad buu dheeriyay Nabadi TV wax badan ma ku soo bandhigeynaa aad ka yaabi doontiin aqooyankuna gadaal buu igu jiraa shicibka ciisaha ay isduwan gelinaya saylac lugayeysteenna waxaan ka codsanayaa inay saa isku soo duwan gelisiin haddeed waxaan ku dadaalaynaa muddo annakii aqooyan Maxamed Cawaale aan dhexda u xidhanay maanta aad garateen waan nigu hambalyeynaa meel kasta dacalada adduunka joogtiin aad iyo aad bal ila eega hooyada ila daawada waxweeyaan anigu xanuunka 16 sano waan la noolaa wax dhibaato ay gumahayaba laakiin dhibaatada ugu weyn ee haysataa waa mushkiladda jaarka iyo warwarka goorma lagu ogaan kalbu gurigan digo goorma laga ogaan goorma dariskana ku ogaan ayuun baba dhibaatadiisu baa ayaba ii tahay raxmaan raxiim waxaweye anigu horta istigma badan bay ku dhacday istigma badan ayaa anigu horta igu dhacday kaliyahan waxaweye gurigan waa guriga shanaad kasoo guuro dariska unbaa ay ogaanaya darisku markay ogaadaana takoor bay igu sameynayaan dhibaato faquuq ah dukaankan wax kasoo iibsanaya ayaa xitaa waxaan kor leegaga sheekaysanaya oo hadduu doono dee wax yaro baaqi haddii igu yaro yeesho odhanaya waxba kuma siinayno ilaa naqad aan siiyo aan siinin waayo wax isku wada odhanayaan isku wada yidhaahdeen maxay tahay dee mar haddii xanuunsanayso haddii lacagta naga gashooda waxaama haysaan dee waxba kama qaadi karaysaan hadhow ومثلا سيدين دين بكبودي وكلا يخلي غير ما قرنسا مركا وحبا إمام هيانبا هادي أي مركي أوغادان ما أقول أنا كترو ترسكي بي مؤوه هادي أي أوغادان عدوان بيسودري وحير بان كترا هادي ما كاي مثلني أوغادان waxaan ku ori halka dhibaato hadan ay garaacaysa takoor bay garaacaya faquuq bay garaacaya waa la dhibaataynaya carruurta la qashqashaya hadii la doono aniga waxta waa la shiid jiray gurigan ka soo baxo hore waa la shiid jiray gawda shiiliga saari jiray carruurtayda iskuulkii aan ku daray baa laga soo saaray oo carruurtayda la misaaneen markay ku leedeen hooyadu baa waxa qabto way xanuunsanaysaa hooyadu baa xanuun kala nool macallin oo qasab ma misaanaysaa wuxuu way qabaan bay leedeen waabana laga yaa jiribay inta la shiido ardaydu markay sii socotay oo shiid jireen markay soo socdaan oo shiid jireen carruurtayda dad baxaan ay yiraahdaan maxaa shiidisaan waaba lagu caay jiriba hooyadeeni iska qabtaa loo dhigay marka dhibaatada ugu badan walaalayaal hooyada dhibaataysan aad arkaysiin xanuunka 16 sano xanuunka 16 sano haya waxa kaga daran bajaarku sida cusriyeynayaan walaalayaal qisad yar oo basiil aan iga sheekaynin aan ku dheeraanayn oo xataa ninka waan weydiistay inaan ka sheego nin saaxiibkay baa jiray dhinacan Soomaalida kala ninka aad buu dadka khamriga u cabaa alkooliga waan saaxiibnay meelaha waxaan ku kulanay bulshadu ku kulmaan ee dhalinyartu iskugu yimaado iyaan ku kulanay ninkii marka dadka qaarkood Soomaalidu waa dad iska yarxan badan ninka khamriga ku caay jireen anigu kuma caay jirin waan la saaxiibay mar waliba wuxuu arkaano iska tukanaya oo ilaahay ka baqaya marka uu ila saaxiibay markuu ila saaxiibay mar waliba waxaan tusaan dhinaca fiican baa tusaa hatta kama yiraahdo khamri baa cabtaa hatta noloshiisa kuma mashquulo haba si haatan niyo ila talibiyeen ninka khamriga cabaa shakhsiyaantiisa markuu caadiga yuu saaxiyay waa nin fiican waa dadka aamusan ku waayay markuu khamriga cabo wax badan baa ku furma ninkii ila talibu yiri hayibaan keenay waan kula talin walaal waxaan keenay waxaan sharaf ma qofka khamriga aad u cabo sharaf ma 40 jirkiisa ku jiraysa marka ilaahay ka baq qabri baa wala galaya wala wala dhimanaya ilaahay ka baq adal xasil waasil ninkii wuxuu ku dadaalay inuu iska daayo uu tukado iyo ku dadaalay amarka ilaahay ka dulqaaday wixii ilaahayna talo saartay ilaahay ka dulqaaday maanta wuxuu yahay wallahi been ma xataa waxaan oran karaa diinta islaamku iga dhow yahay shantiisa waqti uu tukada waalidadii ehelkii qaraabadii wax waliba uu gargaara marka walaalayaal qofka waa la soo dhaweeyaa lama durkiyo bal islaanta iminka waxa kaga daran montalian psychological xanuunka haya waxa kaga daran dadka bilaadanku dadka way waalaan warwaati AIDS kala hayd ciyaalkayga xataa iskoolka la shiidaa bay ku leedahay gurigayga la shiidaa magaalada deganta waxay ka jirtaa 10 kilometer
ولا ليال ومدة الصومالية صومالية ودن جيبوتي مامول بلادك نقطة يا مقدشو عاصمة ولا ليال قفك هدو دباتيسين اللقمو ويرسدو ولا قرقارة هدية قرقارة إلهي وكو قرقارية إلهي وكو قرقاري سور دوي قفك إن إلهي بحنونك كردي إن إيريس كلاجما قادون محايد سكس لما قفوا إسكت تجون لاجما قادا وحن وردد وحاجرة صدّن سنة زينيستا أو وحاجرة عسين أو إلهي عسي صدّن سنة زينيستا أو فص خجرة سيدانا كم دعوة سيدا جو حلقة قادا مديل بلقة قادا كريا قندوف قبل وش بديك وح بدن بلقة قادا سيدا قال إيريس كا لاجما قادون سكس كا مركا ولا لين اللي إسكت دكتماها إن اللي إسكت دكتماها ما مدانا إلهي وحن كبرينا وما نجمعنا بدي تي في الشعب كريج جبوتي إلهي إنه قرقاره هو يدا إلهي إنه عافيه هو يدا أنت الدباتي سنوردن حنون كيجا قبتنا إلهي إنه عافيه أنت الدباتي سنة كورونا فيروس قبتنا إلهي إنه كسره إلهي ومدن محمد ناون نحرسته أنا كنا ناون نحرسته آدي يا آد ورا الله قصعنا ولا لنسادك صوتين نبدي تي في وحن لانها ولا ليال ولا له الناس الصوماليات meel kasta ay joogaan haddii aan nahay shacabka reer Djibouti haddii aan nahay dadka xaq u dirka ee reer Djibouti ee isbedelaad jecel anigoo magacayga gaarka ku hadlaya Nabadiid TV iyo aqooyaan Maxamed Cawaale iyo shacabka reer Djibouti walaalayaal dhalinyarta Muqdisho qaraxa ku dhimatay ee ka baxday ehelkood iyo qaraabadood Nabadiid TV waxaan u direynaa tacsi iyo shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waa dhalinyaro aniga ila daa qeyrkaya marka wadku meel uu jiro lama ogyihin laga yaabo hadhow live-kayga markaan dhameeyo inaan dhimanayo lama garan karay xilliga dhimanaysi marka ilaahay u naxariisto walaalayaal faatixada u mara ilaahay u naxariisto walaalayaal anagu shacabka reer Djibouti haddaan nahay dadka Soomaaliyeed tacsi baan u direynaa bal walaalayaal waxaan dhageysiinayaa dadka reer waqooyigu tacsi ay u dirayaan dadka xataa way ku faraxsan yihiin dadka masaakiinta iyo dhalinyarta la laayay سيبا إساق عبر أولك وحن ولا لا يلسكو سو جوجوية ونداوسين دونا إنير أو بلا إذبدا إلهي أن على ذا بلا إذبدا أو ضد كقرحة كدمتي كفر أحسن وحن ندقين النودقيسين دونا جاهل مصبيحي أو عمر عرتقالي أو نكي سوماليا بابيها إلهي ونحرسته وحبا ما أوران قرايو مدام شرفت ذي وحود ما يساقف ميتن أو دمتي هدي أن وحن كشيغو من سومالي وحب بابي عمر عرتقالي habar awal buuha una amaanaya rag ka tagana ziyaad barana waayaya qabiil ahaan bay kala landheeraysan reer ahaan waa nin maraxaan oo reediini kana waa habar awal iyo dul bay isku jiraan raganimo markay noqotiyo dagaalna de waa nin reediini oo taariikh leh kuwan taariikh male hablahoogay taariikh ku yeeshaan waxaan dhageysiin doonaana khadra habeeso ciisaha ku tilmaamaysa cadow waan isku soo googooyay hawsha ayo dhanna waqtiga iga qaadatay ee ciiso ila daawada dadka masaakiinta ku faraxsayeen la diray anaka Nabadiid TV inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay u naxariistaan leen aad ila daawaday doorka تعالي تبكي حمر ما أدري قرح بقى المقرح لا يم قدادين لكي ولا أنا براقة صح معك لا حمر وقرح لا يري تعصب متر أنا حيتي أي نقد دعوة حط رمينا اليوم كلا قشافنا أي بدنا راح شيء على صوت ريو حمر تاهي حمر فوكي وماشي سومان لان باك شاف هرانك من الشاب قد تباكل نعم دربي ذا تشير لكن وحلا بدلي حمر دربي ذا تشير دنيا عذب عكت استاذ waxa uu dul taagan yahay xabaashi Umar Artaqaalibe maanta waxa uu nacdalayaa siyaad bare oo isna mootan wuxuu nacdalayaa awooyaasho daarood oo wada mootan wuxuu nacdalayaa awooyaasho reer koonfur oo dhan oo wada mootan waxa maanta aan ka shakiyay oo dib u noqosho u baahan xataa diinta uu haysto Muuse Biixi markuu meydna amaanayo meydad ka horeeyay oo ka horgeeriyoodayna nacdal qabriga dushooda kaga hurgufayo waxa uu amaanaanu lahayn dul hoobiyay ninka la yiraahdo Umar Artaqaalib oo inuu wada naqaanay waxa uu nacdalo inkaaro iyo habaara dul dhigayna reer koonfur daarood ha u bahaadaan waliba iyo siyaad bare ila dhageysta kadibna ana ka sheekayn doono aniguna Umar Arte wuxuu ahaa سيدك دلوي الله عنكم وابيكم أيها السلطة درجة وحري ولو كذا هلين بول عيك وفي عسك فريد ولا ديبا تضل الصلاة يسوي شنو قليل ولا تجربه
markii hargeysa uu garaacay ee gurigii umar waan ogahay waad garanaysaa dad ma garanaysaa dibadda inuu ninkan ka yimid yani dalkaygii baa usoo noqday cadowna cabka iibiyena waad inaad fahamto weeyaan sax ma garanhoy adiguse gabadhayadii baa tahay dhulkii baad iska joogtaa waad iska timiday show waa dee iyaa kula sameynaya adiga iyaa kula maamulay walaalayaal waa ninka arkaya walaalayaal waa ninka arkaya waxay u geysanayaan dadka Soomaaliyeed ayda aflagaadada xataa dadkii dhintay iyo aflagaada waa inan tahay waxa oo dhan waa wala habar awal walaalayaal dadkan walaalayaal inay abaal lahayn ciiso sida ku garta inay abaal lahayn yes en Ziyaad Barre oo geesi ka tago oo dhintay waa wiilkii Soomaaliya walaalayaal madogsoontiin koonfurtu daraadan Djibouti inay jaamacad al-Arab ugu biirtay sidaan gobonimada u qaadan wala kuwana odayga cigaal loo oranay Allah u naxariistay odayga Cabdirashiid Cali Sharmaak wuxuu ka Djibouti iyo Soomaalidan la xoreynay farax ka qaad ninkan waa ninkii noo dagaaltamay koonfurta waa wiil marreexana oo reed diini oo reed koshina landheerag waa kana waa barawal ragga warag taariikh la Ilaahay Axmed Gurre dagaaltamay kuwana ablowgay ku dagaaltamaan waan isku ognahay habarta qadraabees ku wala faanaan dhaqaalaha iyaga iyo xoolaha iyaga waa habarta qadraabees marka walaalayaal waa ninka arkay waana walidaa uu siiyay inan taayir ku faraxsan Ilaahay naclado Ilaahay calaamad gooniid ha ka soo saarna calatullah alayhim dad masaakiin oo la laayay dhalinyarta waa wala dhalinyar waxa la laayay iyo ku faraxsan tahay balka war subhanallah walaalayaal madaxweyne Farmaajo waxaan faraynaa siyaasadda wadid waa siyaasadan kugu hambalyeynayna anagu shakhsiyan waqooyiga imika waxay bilaabeen Djibouti oo ciidamada hiil walaal ku dhimanayso beledweyn ayuu isaguna Eritrea la safanaya madaxweyne waxa waa sheekada Ismaaciil Cumar Geelle odayga doqonka ay adeerkay ku shaxaadaan waxaan ku faraynaa siyaasadda wadid waa siyaasad fiican Djiboutina Ismaaciil Cumar Geelle xukuumaddiisa waxa weeyaan iyada dalka Soomaaliya baabiinaysa hargeysa oo maamul beeleed oo Soomaaliya kamid ah iyo u heelinaysa Soomaaliya inay kala go'day rabtaa annagu Ciise hadaan nasiiba aniga iyo aqoon Maxamed Cawaale iyo Chief Aqalka Ciisaha oo dhageysiin doono imika ahaan oo isaguna ka soo jeeda qabiilka madaxweynaha ma raaxsanina annagu adigan ku taageersanahay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waa cadowga ummadda Soomaaliyeed aad bal Chief Aqalka beesha Ciise halii la dhageysto aabihiina Chief Aqal buu ka lixdanadii Saylac Xasan Amari King Garissa alla dhageysto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق هو حسن أماري وحانا هاي تشيف لوكال أتورتي أما تشيف عاقل كان سوتش هذا باش عيسى وحان رباينا لبكا المضوط كإيدا هذا مشاكل كتاقن مقدشو أما الضبط اللي في يد اللي عاقتك السوق عطيني قرن كبربريان الجسيرة كشراي وما دورتو ويكا هذا الشيء عدكو دي ويكا ديبتي تايدين اينا قدر ناربا قرن كالصوماليات يساقو باباي او توق هلي ومسوق ماسوق هلي وأسفل السافلين شوكته والدنيا وجوه صية ولا سعنا إلى هاي مدحوين ونون صدري محمد عبد الله فرماجو صدري افتين صوب حيوي إلى صوب حيوي نور مدوي مدوي ودن كودي بوهجاج هميجي ومد الصوماليات بالسوء علي والسوء علي شرفت يدي يا كرامة يدي يا ضنمة يدي انت بقوا سوء علي ومد الصوماليات ده بدها كحنا يدو صوت داي ناشان تياتر ولا لأنك هذا كسين وجيف عقل كين جارس أبينا جيف عقل بوا سيلع لغاية ستي وأنن إلكي قرابدي تاريخ له وأنا كوان بلياني أسد قروح بدن وكين جارس أو قهاد لي لبدي سي فيديو نبدي تي في وأنا كوان بلياني يعني سي جارهنا وأدر كي أدقو أدر كوريس كتو سيما كله هاي أديات كله با حلبان ما هي وزير كباشا عيسى يان كونو مننا إن شاء الله وأنا كسوي حمرنا تكبق يسيد ما يوان كوو قصبنا جيف عقل كيغا دويا مدحوينا فرماجنا سيجار waxaan ugu direynaa ninkaaba namatala beesha ciisaadaan nahay wasiirna nooga dhigo raggan Ismaaciil Cumar Geelle lamaayo dawladii odayga habar gadiire cayd ka jooga ma rabno aadiya walaalayaal saad ogsoontiin dalka Djibouti waxa yimiday madaxweynihii Ethiopia madaxweynaha Ethiopia sidaad ogtiin oo dhan waa naag weejaan xafladaha bay furtaa Ismaaciil Cumar Geellena xafladaha buu furaa
waa laba madaxweyne oo power lahayn dalka Ethiopia waxa ka taliya qotiga yar Ahmed Abiy annagana waxa ka talisa Khadra Habeesa ka talisa dalka walaalayaal waan tusaya visitka ee u imatay islaantuna ana ni macnaynay hadda dawladda Ethiopia federaalka iyo xukuumadda Khadra Habeesa dalka Djibouti walaalayaal hadda gabagabay ku jiraan wuxuu yiri Ahmed Abiy qoti Ahmed Abiy 2 bilyan dollar iyaan bixinaa buu yiri dalka Djibouti oo dikadaha amba porka si fiican nuguma adeego marka way ka guurayaan oo Eritrea pork bay u guurayaan Masaawi u guurayaan waxa ay dhan cadeynteedii aqoon Maxamed Cawaale iyo toddobaadkan oo dhan ka soo shaqeynayay wixii cadeynana insha Allah waan nigu haya meesha niga daawsiin doona hadii Ilaahay raaho bal waxaan doonayaa inaan tuso labada madaxweyne ee power ka lahayn tan waa Ethiopia federaalka islaantan kana waa kii Djibouti isagoo xafladahan buu furaa faa'iido kale dalka kale yahay ma jiro inta Ethiopia walaalayaal waxa ka taliya qotigan baa ka taliya Ethiopia qotigan Ahmed Abiy baa ka taliya annaka dalka Djibouti walaalayaal waxa ka talisa naagtan baa ka talisa Khadra Habeesa xooleyniyo dhan Hargeysa geysay madaxweynaha dalka Djibouti walaalayaal waa odayga isku hurda waa odayga weejan u hurda ma saxdo markuu tago jaamacada Arab amba Union European amba Mareykanka waa ka isku hurda odayga dalka Habeesadan baa ka talisa walaalayaal isagu wuxuu ka yahay islaanta xamashiyada kale ee xafladaha furta haba yaraatee wuxuu ka yahay dalka Djibouti ma jiro marka walaalayaal saad ogsoontiin aan sheegay dalka Djibouti bay islaantan imatay dalka Djibouti markay imatay wuxuu kala madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle uu ka codsanayay islaanta oo islaanta ka codsanayay inay isla heshiiyaan ninkan Maxamed Ahmed Abiy oo porka Djibouti si fiican baa lagu adeegi ee porka inuu ka qaadin adeeg fiican oo fulinaynaa beeraan porka Djibouti inuu ka guurin Eritrea marka arinta oo dhan bay isla eegayeen waa ninkii ogaanay islaantan madaxweynaha dalka Ethiopia federaalku waa tagtay oo Bakar Xadi odagii adeerkay waan ka yaabay doqonnimadiisa islaanta saab ugu dhigay waan yaabay ma waxa si fiican u salaamtay qoti Ilyas Dawanle qotigii maaliyadda haystay si fiican u salaamtay qotidu way yaqaanaan xamashadu Soomaa marka walaalayaal waxaan doonayaa inaan tuso hadda way heshiiyeen porki waa lagu heshiiyay Eritrea Masaawa waa lagu heshiiyay Ahmed Abiy amba qoti Ahmed Abiy wuxuu u guuri doonaa porka Ethiopia porka Eritrea ayuu u guuri doonaa Djibouti uu ka guuri doonaa porkan tusaya walaalayaal Masaawa waa kan porka Masaawa waa ka porku waka walaalayaal adeedu ka guuraya هذا دولة جيبوتي ولا جوريا بوركي ولا ليال تانا نيوبا ولا ليال أديد ولا ليال قتي أحمد أبي وقت الشذي جيبوتي ولا قت الشذي جيبوتينا إلهي إنه ما كان بلايا كود عدون تجيبوتي ودرك دونتي ولا ليال ولا جوري بوركو كجوري إلتريا يوتجي دونا هدو إلهي راهو قلدي ولينا واحد لبض قال تمس دولة جيبوتي دي بي ووركي qoladii imaaraadka oo dagaal xoog ku wada marka walaalayaal taa waa dhinaca walaalayaal saad ogsoontiin hore aan uga soconno diyaaradii Hargeysa ee Djibouti ku qorneed waxay walaalayaal accident amba shaagu ugu qarxay Puntland garow shaagu ugu qarxay walaalayaal diyaaradaha marka la qaadayo amba diyaaradaha marka walaalayaal inta diyaaradda la raacin inspection baa la waxeeyaa 10 saacadood in gaaraysa inspection la waxeeyaa waan tusi doonaa videoga inspection-kii waxa oo dhan waan soo download gareeyay ninkan yar ee mas'uuliyadda loo dhiibay walaalayaal ee director-ka laga dhigay waa incompetent waxa weeyaan walaalayaal farsamo xirfad uma leh agaasime inuu ka noqdo diyaaradda qaranka ee Djibouti ninkan aad arkaysiin waa nin Djibouti joogay oo qabyaalad burus lagu siiyay oo loo diray Faransiiska inuu wax soo barto Faransiiska markii la geeyna khamri iyo tumashoon buu la kala baxay wixii reer ahaan caadada u hayday dhaqanku uga ahaa islaan yar oo cadaan oo iskala tumanayay khamri iskaga cabay waa la keenay meeshii waxa loo siiyay meeshii walaalayaal wiilka dhabanka loo siiyay la yiraahdo lacagtii qaranka diyaaradda soo gasha inta waxa la yiraahdaa benefit avantage et inconvénient diyaaradan maxaa soo gala maxaa ka baxa lacagtii soo galaysaba DJ Zubair
يا لما بقول يكتب كونو إيرولسية تركي جوري كيب سدي جرو كفرتي باشي تمها هرجيسنا كفرتي لعقت الديار الدقرن كابا لقطت من يابا ولا عليه أو قلبهون دي كابي ساق الله ويا العقل الصينية كان هذا الكيسين حرفض وملأ وان كومبيتنس بالفيديو واحد الدقيسين دونا ولا ليال فيديو واحد الدقيسين دونا إن جروي ديارada inspection-ka garowe markii dhalinyarta la wareysanay waxba kama dhicin oo dadka dacaayada wadi iyo maxay warqadahay Ismaaciil Umar Gelle toddobaadkii hor laba bilood horteed baan sheegnay ninkan inay meesha ka qaadaan ninkan waa incompetent ninkan waxba ma garanayo ninkan lacagti dalka ee qaranka diyaaradda Hargeysa la geeyaa cargo-ga habla yaro isaaq waabara wala la dhigay marka Ismaaciil Umar Gelle iyo xukuumaddiisa goor horaan u sheegnay wallahi maalintii la doonayna la eriyo waxa la iskugu yimid xaafadda wasiirka tacliinta يلا شو أدقي علي عبد فارح إساقي يودر وهاي ما سنقي بايقو كحي عيسي بايقو كحي هلا يقبط وسكوي سلانتي بوتشي واركاري هرم فرداني كادو دي غرغرة ديدو كوز شرايو يايو وضد كان ميدياش عاي والله وحبا ولا قادي واي واكا إلهي با خشفية وحن ويسكسو عنان إلهي با خشفية ولا لا بل فيديو إلى إيغا ما اسماعيل عمر قال الحكومة دي سأله بوركاني ماشي هنا كقادة he must to go this guy وان كومبيتون waxba ma garanayo wuxuu garanayaa haba yaraatee ma jiro marka ninkan meesha waa in laga qaado gorgorada hablowgaadeed way oranayaan waa in ninkan meesha laga qaado walaalay la daawada fiidiyowga It's the final push before Boeing delivers the first ever 787 Dreamliner. Mechanics are opening up the airplane from front to back and putting stairs in place because tomorrow launch customer ANA is coming to make one last inspection. Get everything prepared for them to come through, make sure everything is nice and shiny, everything is good and right. Inside, mechanics are checking and double checking the major systems, even going seat to seat to manually test buttons. When you're selling a highly advanced jetliner made up of millions of parts, it comes down to the smallest of details. It is very tedious. It's an ongoing basis until the airplane is handed over to the customer. The next morning, a team of inspectors from ANA arrives with a long list of checks. They fan out and begin what will be a 10-hour inspection of the airplane's structure, systems, and the cabin interior. Our inspection is very important. We have to receive the high-quality airplane for our customers. The inspectors open with the cargo bay doors. Then it's onto the engines and the wing. Soon the flight control surfaces are given a workout. Up, down, side to side, as technicians in the flight deck go through a series of maneuvers. Every major airplane function and many minor ones are checked, including the windshield wipers. Thank you. Always a pleasure. Back in the cabin, inspectors run through different lighting schemes in the ceiling, darken the new dimmable windows, and air out the public announcement system. Tram 30-second test. File 2. The stow bins are opened and closed, the reading lights are turned on, and each socket evaluated. The toilets get flushed. It doesn't stop until the ANA team and Boeing customer support examine every facet of the cabin and agree that each one conforms to specifications. They are very conscious of quality. They're looking at things sometimes for the third or fourth time to make sure they're as good as we can possibly get them. 2 days later, the airplane is put back together so it can clear one final hurdle. An ANA pilot joins the inspection team, and they take the 787 out for a 3 to 4 hour test flight. During the flight, many of the same functions are checked again. It's all part of the extensive pre-delivery process to make sure the airline is happy with the airplane. Since he'll be diyaaradaha sida baa inspection loo waxay wariya inazil keentay diyaaradaha sida baa inspection loo waxay diyaaradaha 10 saacadood bay qaadataa sida loo eego lacagtii dalkaba DJ Zubair iyo inan yaro computer-keegana walaalayaal iibsaday anaaba DJ noqon karay labo kun maxaa 250,000 oo euro aw bisaday cawaale wixii helaan la yaabay canfariyada yareedan ka helay anoo canfarta badanka kama helay gabadhii canfartan ka helay aw maxaa loo oranay faafi iyo fifi mooja aw gabadhii canfariyada kan reejibuutiba ma balaaga dadsan niicay walaalayaal lacagtii inta laga dirgiya kuwi waxaad ogeedeen maxamed faarax ninkii isdeefondeyn karin ba xataa walaalayaal wadada ka xaday waxaan nagu cadaan baaba tiimba dad baabacay oo gidaafada wallahi waa ninka arkay walaalayaal waxaan doonayaa inaan tuso
فيديوغي جيبوتي يان دونا إنا نتس هرقيسة أنا نوغو يراي أليلايغا ayay ahayd markii diyaaradda Air Djibouti ay shil ku gashay garoonka diyaaradaha General Maxamed Abshir Muuse kadib markii ay taayir u qarxay balse aanu jirin wax kale oo diyaaraddaasi soo gaaray. Axmed Faarax Ciise oo kamid ah maamulka diyaaradda Air Djibouti ayaa faahfaahin ka bixiyay inay sii socon doonaan duulimadyadii ay ku tagi jirtay qaar ka mid ah magaalooyinka Puntland kadib markii mid ka mid ah diyaaraddaasi ay cilad ku timi. Anoo ku hadlay magaca operationka diyaaradda Air Djibouti Puntland staff ila jooga dhammaan waan u macalin TV cable TV oo runtii ka qayb qaadanaya informationka degdega maanta shilkan yarka waa dhacay alxamdulillaah rabbil caalamiin diyaaraddu wax weyn hadda ma gaarin waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda inay dib diyaaradda noocan ay shaqadeeda ugu soo laabato laakiin waxaan u sheegaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland inaysan istaajinin safaradeedii berri boosaaso flight-ka ah oo caadi u baridgareeyo u shaqeynayo diyaaradduna ay sideeda shaqada u wadato dadkii Muqdisho iyo Hargeysa iyo Djibouti inay xafiiska la xiriiraan connection ugu dhowna u sameeyay diyaaraddu ay maaragtay diyaaradaheena kale aan isticmaalno aysan ahayn kaliya diyaaraddan inay diyaaraddan isticmaalno ay diyaarado badan oo kala jiraan insha Allah waxaan u sheegaynaa inay shaqadu socoto inta yarta maanta Ilaahay nagu diyaaradda Air Djibouti way nabadgelyo qabtaa rakaabkiina si wacan oo nabadgelyo qab uga soo degay taayirun baa u qarxay rakaabkii kuwii ku qornaa iyo kuwii transit waa ninka walaalayaal arkaya madaxweynaha xukuumadda Djibouti waxaan faraynaa ninkan meesha inuu ka qaado ala boore ninkan meesha inuu ka qaaday must go this guy waa incompetent waxba ma garanayo waa nin walaalayaal meelaha khamri iskaga cabayay marka walaalayaal ninkan waa inuu ka socdo aw diyaaradda qaranka ina loo dhiibay odagii magaciisa loobay badar xaanaha ee Soomaaliyana siisay badar xaanu dawaalo haabaan jeclahay magaciisa muxuu aqoon Maxamed Cawaale iyaan soo qaban doonaa oo sheegi doonaa aw wixii badar xaanay bartay diyaaradaha dawladdii Soomaaliyana siisay kan yasalkiina diyaarad ma wade marka waxaan farayaa xukuumadda dalka Djibouti waxaan inay walaalayaal ka qaado meeshan u dhibto ugu dambeyn walaalayaal barnaamijkayga hadda waan soo gabagabeeyay aqoon Maxamed Cawaalan soo qaban doonaa waxaan doonayaa gabadh inaan shido ka soo jeeda Saylac Lugaya State oo si gaar ah fariin ugu dirayso odayaashan Ciise ee mamaasan ee Cabdi Geedi ee xataa hal nin oo afayeen lahayn ee saa isku soo dul taagay daahir ciisood daahir ciisood odagii badar xaan aw daahir ciisood aw NSC dawladdii Soomaaliya uu jooga emise ragoo ciisuu baray oo qabiil kasta leh 12 qabiil ee Ciise leh xataa badar xaan aw bataan dawaale odagu dawaalo iska jecel yahay waan yaqaanaay waxba maahay aw intuu kani meesha la dhigay subhanallah bal gabadhan dhageysiinaya fariin gaar ah u diraysa iyo daahir rayaali iyo bal ila eega gabadha waa gabadh Ciise siiba garaan badar xaana gabar aad iyo aad oo dumarkii maasanka waxaan ugu karti badan annagu dumarka badar xaanka waliyaduna waa cali cadde ma sha Allah raggooguna waa ragga ugu jilicsan maasanka haba si haatay intaana raali hada waa kaftan aad iyo aad aw ku socayna odayaashan wuxuu sheegay in dhibaanay waxaba dhaamaba reegidiga wuxuu Ciise u qabtay iyagu ku faaran awoodda quraatay leey reegidig ma taqaan waxa ma qabsadaan waxba ma bixiyaan ma wuxuu Ciise keenay ku faaran waa xarfad bay kamid tahay waa xarfaanimo weeyaan ku soco أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما نرتوها صوص سلام يا بلشة الصومالية waxaan rabaa oon daawaday video ay soo duubeen odayaal Cabdi Geedi joogay oo Ciise odayaasha baa rabaa inaan fariin iyo ka dantooda u sheego video badan oo lamid ah horaan u daawaday filimkan ay adeeraday meesha la soo joogsadeen waa filimaan aan soo daawanay ay in badan baraha bulshada soo mariyeen aad iyo aad gaar aan waxba laga qaban adeerayaal rina geeska ma ridin waxaan baan samayn doonaa waxba haddaad samaynayn lama yaraa Soomaalidu waxay tiraahdaa amba waa la muuqdaa amba madarka lama tago haddaad waxa aad samayn karay aamsa waxba ma samayn kartid waayo waxaan hadalkan iguma cusbo waxbaan samayn doonaa waxba ma qaadaysiin waana ini bartay waana ini mitarsaday inaan wiil waxaad noqoteen yacnihii dad la adoonsada dib u noqoteen Ciise waxba ha xasanadeynina Ciise dhulkiisii
حسن وضو وان كسو دويننا حسن وضو فنانكي قرنكا سو دو واسكا كفتن دي ريغي دوغ markan xabad ku tuuro maanta way ugu telefoon badnaan tolkay waa kaftan hadalkaygu inuu dhibin soo dhow xasan wado ku soco in adeer ku soco isaga hagaajistay xiniyo waxinayaha kugu yaala ma hay wax ka tolka ku jira tolkaas ayaa ku xiniya tira reerkan aad markasta u yeeratiin caw hadaan nahay caw wax la yiraahdo ma jiro waxa nafta been haw sheegina sheekadan caw 1999 kiiba dhamaatay wax caw la yiraahdo adeerayaal ma jirto caw baan xakaa inay degay isaga edegta inigu xidhan isaga qayrkiina niga reebay idinkuna dameero ay leeyihiin bad noqoteen waxa kaan cala nin raga wala laga fiican yahay calaalka dumar baa diiday calaal idinku raga calaalaya shan mibris baan inigu kala furay Djibouti oo ku kala qaylanayeen shantii reerood ee haydeen ayaan inay kala furay shan aqal oo nin kastiba maadaama division bay inigu sameeyeen si aanad u soo kamin waad garan weydeen inaad isku timaadiin oo danihiina garatiin waad garan weydeen idinka dhexdiina iskala qaadqaada idinka dhexdiina mid isku wada sita waxba been naftiina haw sheegina bulshada inay maqashiinaya maanta Farid rag noqda dameeraha u noqonina reerkii 8 gorgorada inay soo xidhan dadkayni geliyay Colombi ruwaayadiisii dadkii ma dilowdeen shalay wixii ay nigu sameeyeen ma dilowdeen dadkii casriyeysan taasi waxay ahayd waqtigii bay ahayd tii oo casriyeysan ayaa haddana inagu wadaa dhulkiinii ayaana inaga weli dhul la xiraa adduunka ma jirto weli isweydiiya waxa dhulkiini intaas sannadood u xiranaya reerkan way inaga argoosashay ku jiraan idinkuna dameeraad noqoteen aqligii lagu garanay waa laadihiin taad shalay marayseen ma iloobin way xasuusan yihiin qaybi oo xakun baan inuu hayaa waana inay qaybiyey gabigiina waana inay wada xakumaa shantiina aqal ka xor ah malihidina qaybsiga waad u siman tihiin fadlan waxayni weydiisanay anagu hablihiinii baan nahay guurkana ha nagaga ciyaarina kaftankana ha naga xidhina haddaad rag noqonayn ood isku tegayn ood iska xoraynayn reerka cawlkaad sheegaysiin kow aad isaga isku xoraynayn waa isaga waxa xakaad fadhidiin ina dhigay aamusa iska ogolaada addoonsiga ogolaada oo noqda saleeb master idab leh oo meel fariista haddii kaleete dulunka iska dulqaada ciise waxay Soomaalidu tiraa toos nin la uga gasho tolno dhirtiya idinkii baa galgalan kari laaya waad galgalan kari laadihiin muxuu talaynay yarkin dameeraad u tihiin Cabdalla Gadiide dameero ayaad bafur lagu tihiin maxaad markaa rabtiin in maad aragtay aad qabsatiin fadlan hawada waxaa soo kala hasoo marinina kii wasiirkeenii hana kadib uu joogaa waa isma xakumo waa la xakumaa xakii tag la yiri ayuu tagay idinkuna xakamadka cala calaysid fadlan haddaad siyaasadda casriga aad fahamsanayn xaafadihiina fadhiya intiini Djibouti joogtay ee xoolo in xiniga xoolo badan ma jirto shan maqris majlis baa loo kala furay oo la yiri aqala qabiil kastaay majlisaa joogsada rag sidiina in qaybiyay oo in xakuma idinkoo ka badan oo ka tayo badan oo ka magac fiican oo ka taariikh wanaagsan kada xadaarad fiicnaa oo weligiin baad haydeen dadka maad aragtay xaragada iyo quruxda loogu yimaado ka geel badnaa ayay maanta raciyada niga dhigeen su'aal isweydiiya intaad meel fariisatiin su'aal isweydiiya waa hablihiini waxayna la soo hadlaya waxa anoo gabadha aan gartay ayaa idinkoo raga garan laadihiin dad iniga argoosanaya oo iloobin taariikhdii aad ku dhigteen iyo baahidii aad ku disheen ubadkooga aad rabtiin aad hoos geyseen maanta reerkana reer wax ilooba ma dhaqaali baan iga gumaysteen lagu tuftay wala aakhirkiina dhulkiini ba xidhaan waxbay nagagama tegin fikra oo tashada haddii kale aamusa labadaa wax inii yaala ma jirto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fariintaasina waxay ku socotaa tolkay waanad salaamantii aad iyo aad gabadhaa waa nagu tuftay maasha allah Cabdalla Gadiid haddaana aad buu nagu tuftay waa Farid
وفريد ورقي قرحده كوفاني بدرحان إن هذا أديكو رالي وحن كويسيني سياسة ما يقانان أنا ورنا أنا ويل عبد الله جديد ونبديده إياه سياسة ما يقانان ونجا مقع في عين ورو ونجا جيل بدناينا سياسة مركل هيداو ولي قد باللغاية وحقول لي عبد الله جديد عقال يبفر ربا قلت لي سياسة دوي كليتان أنا أقوله آديان بواحد شيء صورون مركا وين الله كعو آديان ولا لا يلا قويان محمد عوالة يان سوق وانا قف اللي باختيار كيسو ديبن كريا أنا جو وان احترام أوبينيونك بلا قويان كان سوق وانا إن شاء الله وقتي أنسينا يا إلى ما يصدر مريض أم بالله مريض أردو صلاة دين وانتهي يا لا قويان كسو قويان كان سوق وانا السلام عليكم أخويا محمد عوالي جمعة مبارك سور دوو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدي لو ما صنتهاي آلي أدو ما صنتها ما يستينا نعلمها كفا وحباك سوق وحباك هاقعي بالي دقا داسيت وحا دون ما أقويان اسكا صار وكسي ده ولا وسوقيه بس مسيتو واسكا صاري يمدو لكن فيسبوك افران بارو مرين كسر ده هذا وحبا شقوقها صعدان هذا الكاغو توس سان ربا في عندكم ملقان لا تكسي ديس فيسبوك اسكحد وما بانتي فيسبوك اسكحد كوس كلان ديري كوسو horta waxaan doonayay dhowr qodob baan soo qaatay Djibouti-da Eritrea dagaalka TPLF iyo u dhaxaysa Abiy Ahmed iyo Umar al-Makhari boorka Djibouti laakiin boor Djibouti-da adaabad si fiican u dhigay mid qolo ma ku daraya dhibaatada ugu weyn waxa weeyaan waa maamulka Djibouti kambaniyada caynkaas oo kala sida looma maamulo kambaniga ugu horeeyay maaha adduunyada maaragtay autonomous baa la waxaa ka mid ah Ethiopia Airlines Singapore baa bilowday waxaa ka mid ah Dubai Emiraadka waxaa ka mid ah waxaa la sameeyaa waxaa jira board of directors ama conseil administration la sameeyaa conseil administration wuxuu yeeshaa madaxweynuhu leeyahay qofka directorka ee maamulka wada ama CEO da leeyahay ama PDG-ga Faransiiska leeyahay horta jeeganka lacagta maaliyadda gacanta ma kuma dhigo qolada la yiraahdo conseil administration ama board of directors ayaa qora qofka maamulaya yarka inuu kale maaragtay sida sheegaysa gogolada gabadhooda wax ku helay yaa iminka isaga iska haysta isaga iska haysta isaga maaragtay qofku doon siinaya because waxay ku tusaysaa systemka waxa lagu maamulayo systemkaasi iminka in la siiyahay shaqaalaha Djibouti-da in la siiyahay horta maalgelin laga qeybgeliyo ay ugu yaraan yeeshaan bahal 220% ku yeeshaan in ay shacabka loo ogolaado inay maaragtay ay maalgashadaan at least macaashka 6 bilood 3 bilood 4 bilood 6 bilood macaashkiiba qof walba wixiisi loo gooyo laakiin kuwaaba dawladuna ay ku yeelato hadda ugu yartay dawladuna 50% ku yeelato kuwaaba marka laga dhex samaynayaa waxa la yiraahdo conseil administration ama board of directors kuwaasa qoranaya qofkii u qoranaya experience uu leeyahay amba competency imika ninkan waa incompetent way ban ma competence male ma garanaya si wax loo maamulo laakiin waa loo dhiibo ma si logay waa xaga kale xitaa maartay petroleum koosada dadkani maanta waa gorta beelada maartay maanta inuu isaguna Umar Ciisa ku karbaash bulay Ciisa ku baabi iyaga waa adiga arkay dadkii la duusho aseeyo kaas adruban ka tubaya daritoona marka laga soo qaado wixii la siiyay wada dib soo baxay maxarib baa ahayd Ciisa xagaas uu joogaa cafarda hadalkooda ba sheegay si fiican baad u dhigtay oo waa run horta gabadha maaragtay ina bukaaco dagaal culus baa lagu soo qaaday waa ka baasaboorada xagga la soo dhigay dawladda Djibouti-na waliba ina cumrigeeda madaxda ka yahay waxa ka dhacda waayo qof weyn maaha waa qof ku jirayna maaragtay weligiiba maaragtay sirdoon ahaa shaqadiisa caynkaaya
iskama isma bedeli karo oo waddanka hagaaji maaha laakiin qofka burburi noloshiisa laakiin annagu diyaar baan nahay kolkii hore wixii aan dhowraynay annaguna saxaafadaha maaragtay waaweyn ee maraykanka soo gelinaynaa problemadiisa annagu waxaan lahayn inay dhabarka waa inay iska garanayaan maanta shacabku unba ogeyn wala soo geeyay sheekadana way dhammaanaysaa waa kan Donald Trump ninkii uu hadlaa dalka ka tegay laga qaaday qolooyin kala iman doona wala xisaabin doona okay qoomaluudka maxmed maxaad leedahay iminka islaantii qadaraaskii daafiye la wareegtay qoomaluudka iyada ay dhinacayga ka shan ma si fiican baad u dhigtay qoomaluudka anagu wadda kolkoolaba daahir axmed faarax iyo xisbigiisa dee anagu waxaan ku dhaliilayno inta unan ku dhaliilayna laakiin maanta iyada hadday la wareegtay kala wareegtay yagii dee iyadu ma dadkay ka fiican tahay kama fiicno waa runtaada taa ku hambalyeelayaa inkastuu inankii yar adeerka u ahaayay maaragtay hooyadayba isku daayihiin oo dad baabay igu dacayado yidhaahda maaragtay uu kuu leeyahay anu ma garanayna anu waa dhalay inka ilaah waa iga garanaya ma garanay anigu i haystay oo waa beeraale furraba xitaa ma aaminsano kayar isagaaba iibiyeba fuaad maaragtay lacag ma ku qaato fuaad yuusuf islaantiisa runtii u digaysa kaleed waa ku garanayaa adiga ma nafaqadaa wada furrabuu beer la hawsanayaan axuu iska dhigeen furrabaha jecel waa annagu waa iska garanayaan wuxuu isleeyahay maalintii dhaweeteed maaragtay hadal baa tuur muxuu ku garanaya inaad furrabaha kale ujeedo kale hadduna isagu cogdad kala wadin oo filin kala wadin mahadliya saaxiib buu kala saaraaba uu kala saaraaba iyo kuwa kala saaraayo mahadliya saaxiib iyo wax saab uu kala saar way nacayba ayaa ila soo hadlo war waa tug waan garanaynaa bay lahayn waa lacagtii 720 kun uu sheegayay maaragtay geeda bulsho maxaa fahminaaso leh oo lacagtii uu 720 isaga iyo fadhiye bukaaci iyo daayeerkii muxuu ahaa daayeerkii dabada casab muxuu ahaa xasan sheer daayeerkii iyo kala qaateen uu ahaa horta waan garanayaa kani iyo raqabta waa inankii waraabe anigu maaragtay soo weeraray waan qoslo waxay warkay jecel yahay laakiin hooyadii baa qabsan doonta iska dhaaf maxaad ka awlaadaysaa baa oran xaggaaba kaga gudbay horta waxa weeyaan buuti iyo alcarab waruntaada abiy axmed twitterkiisa follower baan u ahay oo aad badwaariga kuu soo dira waad aragtay marka wuxuu ku qoray twitterkiisa mar dhexdii wuxuu ku qoray Djibouti $2 bilyan waa $2 milyan Faransiiska la yiraahdo $2 bilyan baa naga soo gashay sanadkii aan bixinaa asina dowladda Djibouti waayo adeega aan dekada Djibouti soo marsay xoolaha $2 bilyan yaa naga gashay buuri service fiicanna ma helo oo service fiicanna kama helo okay ujeedadiisu maxay tahay waxaan isweydiiyey Eritrea waxay dagaalka u soo galaysaa maxay tahay dagaalka waxa uu soo kula gashay isaga oo TPLF-ta ay maaragtay ula dagaashay TPLF-ka Ethiopia maanta maadaama dee qolo walba markay haysato magaca Ethiopia ku dagaal gashaa inkastuu dagaalku ka bilaabo shakhsiyaadka maamulka haysta TPLF-ka marka ay dagaalka kula jireen Eritrea waa kay adeegii Eritrea Ethiopia waxay isticmaali jirtay dekadada Masawa oo waa casbara dusheeda casbara noorka ka xigtaa qolooyinka kala degdegana waan u dhawaa dhegeystayaasha waan u sheegi doonaa iyo casab oo dhulka afarta ku taala iyo labada dekadood iyo wax ay uga soo degaan laakiin waxaan qabaa Masawa buu ku yaalaa jecel oil refinery marka waa kay u soo wareejiyay Djibouti 1998kii baan jecelahay ay aduu iyo 99kii awalkiisii intayna dagaalka isku qaaday iminka tiibu rabaa abiy axmed waxay ku heshiiyeen aanu Djibouti baa kaaga soo qaaday ka soo wareejinaynaa waxa la wixii baawaradoo dhan tareenka xitaa waa la dhisay Masawa iyo casab ilaa casmara laakiin tii ay doonayeen inay dhisaan Meles Zenawi iyo Isaias Afwerki ilaa iyo Ethiopia geeyaan Addis Ababa ka geeyo waa ka isku dhaceen hase haato
Djibouti laakiin maxaa u qabsoon Djibouti haddii hadhow toole serviceka xagga uu Abiy Ahmed u weeciyo maxaa ina Cumar Geele u qabsan ina Cumar Geele systemkiisa siduu wax ku maamulana de islaamta kolba mid bay soo qabataa la geeyaa hargeysada lacagta la geeyaa maamul fiican oo sidaan sheegay adeertoole conseil administration amba maartay board of directors waliba competence oo aqoon leh oo waliba de maartay transparent oo de dadku saxaafaduhu ay su'aali karaan waxa weeyaan waa xoolaha shacabkana inay saxaafadu daba joogto waxa lagu qabanayo waxa baxaya sida wax u maamulayaan waa xaq weey laakiinse kolka hore kolmeesaa uu doonayo inuu maaragtay dekada waanigii waagiiba ka hadlayay markay Dubai ay ka tegaysay maamul beeleedkii tegtay loo dhanayay barbara waa inay uma baahno Shiinaha maadaama isku fiican yihiin free zone buu dhisi karaa markaana reeshinka waxa lagu xidmaartay kolmeesaa oo dhan yaa xagga ka soo doonay ilaahay bay ka sheekadii ma bilaamin waxa uu bilaabin boosaasa waxa ka haysata maartay Mombasa ka haysata maxay Mombasa uga haysataa dad serious oo dal doonaya inay maamulaan yaa meeshii jooga laakiin kuwani lacagteeda soo gasha booba la carara dibadda la aqala ka iibsada uu weeyaan marka future-ka Djibouti waa ka xumahay dal maanta dad diyaar u ah oo iska celin kara oo ka hortagi kara ma jirto ciisi cafartiina iyagii baa sheeganaya ciisi dadkiisana waa adiga arkay iminka xitaa majlisya la wada furtay Facebook iyo majlisya laga wada furtay majliskii waxa la afar isku fikrada oo xitaa dood ila dadka baarata inaad isku fikrad noqotid majlis waa noqonaysaa kolkaas jannada Ismaaciil Umar buu ka dhacaya kana wuxuu caaya qabiilkiiba maasan kana wuxuu caaya reer kale kana wuxuu leeyahay macaarid baan waa iska sheekadii nin aan garanayo oo si fiican adigu loo taqaanin mar waliba magaciisa aan taabtay iyo xitaa ka soo casbay war majliska wali lagama soo casbayn biyo mid baa mid ii soo diray baa ka ilo mar raba ka waayo hadday doon tahay ma arkaysid adduunyada kale iyagu waxay doonayaan inay ku beelaan maadaama uu Faransiisku guumaystay reer Djibouti u fiirso mentality-ga Faransiiska inay waxay arkaan telefishinada Faransiiska afar shan meel soo fariisanaysa 2 saacadood 3 saacadood wala hadlaya Faransiiskuna dhaqaalaha adduunyada isaga ugu dambeeya waliba reer galbeedka Turkiga dhaafayba way hadal iyo fan iyo formaash iyo van wala xabo wine wala xabo hadal wax kala ma haya lacagta Afrika u bay ku noolyihiin maalintu Afrika maalinta ka hoos baxdo Faransiisku hadalka yahay daan noola wadi xasuusin maalinta Afrika xorowdo ay ku xoroobaan Greek way kaanaya si Greek ay noqonaya way ku dhow yihiin Greek ama Portuguese way noqonaya Portugal Afrika u bay ku noolyihiin marka mentality-gi bay wataan Facebook-gi bay iskimaatay TV basaasan war at least fikrada kala gedisan la kaalaya anyway Eritrea horta waxa dega Eritrea waxa dega 9 qabiil baa dega waxa u kala baxaan Plateau iyo Low Plateau Highlander iyo Lowlander Highlander-ka waxa dega dadka la yiraahdo Tigreenya oo afka Tigreega ku hadla afarta Tigreega waxa u kala baxaan inta waxa u kala baxaan afar qabiil oo kala baxaan صح qabiilka Xamaasa la yiraahdo waa qabiilka Isaias Afwerki agala Guzeya qabiilka kale la yiraahdo Guzeya Saraya iyo Jibirte qabiilka una Jibirte iyo wax muslim waa nool waxa ka hadlay صح qabalka ay waliba ku dhow yihiin Jibirtada iyo Qunama qodada la yiraahdo صح waxa weeyaan waa Badame marka waliba agala Guzeya iyo waa wali waxa ka hooseeya waliba bartamaha weeyaan waxa u dhow yihiin Masawa صح Xamaasa inka agala Guzeya Saraya iyo Jibirte noolka sare marka u dhow waliba meesha la yiraahdo maartay Badame Qunama barada حتى كوس يصير صوتك وصاحب رشيدة بن عامر إيو نيرة أنا وليلو بين عفرتا مسلك عكبلا إنت مسلك عكبلا هذا واحد دومينية وكريستيانك صح محايا لي ولي يقولوا ما تحت بري ربيع لبدي كل سنة بقولي 100 كتر كي مركز إريتريا إثيوبيا لو دري إريتريا ترياريا كويسنجة صح
markii lagu daray maraykanku iyo ingiriisku uu maraykanka u loobi gareeyey waxay la siinayey waxaa noorka kuwa noorka raacay ahayd oo aqbalay ilaa 62 bay Ethiopia dib ay la uu wala qabsaday kolkii hore autonomy bay haysteen hasa haato dagaalkan haddaba maxay Eritrea u gashay Eritrea dagaalkan waxa uu gashay TPLF-ka ku horjoogay tanihii Ethiopia ka helayeen dhaqaalaha hadday noqoto oo Ethiopia dekad baa u haysay imika Djibouti ugu tahay poor ugu tahay dekad ugu tahay xoolo wala ba ka dirtaan ka soo Ethiopia qaar baa iga yiri porolka Djibouti Eritrea porolkeegu lama tartamayaan oo waa latest maartay cutting edge weeyaan oo technology-ga casriga u dabay Djibouti lagu rakibay iya ku rakibaa kay waxa ku rakibay Dubai ku rakibay waa tala joogta imika drone-kii xitaa TPLF-ka la dhacay iya waday oo iya nool antargareynaya waa Dubai marka Dubai maxay dagaalka u gashay waxay Dubai dagaalka u gashay iyaduna waxay doonaysaa inay punish garayso amba inay cadaabto Djibouti rabtaa maadaama in Umar Kaliibu doonayaan laakiin Djibouti u dhimanaysaa marka aanabuna waxaan oo dhow isku ogyahay Ismaaciil Umar Geelle waxaan oo dhow ogyahay laakiin dad aan la xisaabtamayn yaa dalkii jooga marka waxaan u sheegayaa madaxweyne ubadkii dalka soo kacay waa lagula xisaabtamay farta dhaqaadisid waa lagula socdaa waa kula soconaa maanta indhaha noo furmay waxbaan ognahay waxbaan arkaynaa waa shaka dhabaynaa aad iyo laakiin shacabku iyaga u taalaa annagu wixii meesha xaqiiqda jira shacabka waa tusaynaa sidana waxay jiraan baa leedahay qofkii dee maaragtay meel kale iyagu laga ka eedaana iyaga u taalaa laakiin xaqiiqdu waxa weeye dagaalkani Tigray laakiin ma dhamaanayaa TPLF-ka jahbad buu ku dambayn doonaa hase haatee ku dambeeyo tii oo ay jahbadi jirtoba Ethiopia berigii Mengistu Haile Mariam xitaa Ethiopia boqolkiiba 80 wixii ugu dhanba Eritrea u soo mari jirtay boqolkiiba 20 baa Djibouti u soo mari jirtay boqolkiiba 20 waxay ahayd waa baarka tareenka buuxa tareenkana Ethiopia waxayna u samaysan 1920 marka Eritrea lagu daray maraykanka wuxuu ugu ballan qaaday Haile Selassie waayo taariikhdu waa muhiim taariikhdu qofku hadduu barto aad garanaysa dalka siyaasadda imika socota kaalaysa 1920 dowladdii waxaa maraykanka dowlad la qabsaday madaxweyne ka noqday oday la odhan jiray General Eisenhower madaxweyne ku-xigeenka wuxuu ka dhigtay Richard Nixon baa Addis Ababa yimiday waxay u baahnayeen baas u baahnayeen kolkaas Soomaaliya xor ma ahayn Djibouti xor ma ahayn baas military ah yay doonayeen Haile Selassie wuxuu ballan ugu qaaday haddaad Ingiriiska iyo UN-ta iga dhamaysiin inaan anu Eritrea gacanta ku dhigo anaa idin siinaya bayski iyaguna waxay ugu ballan qaadeen inay Eritrea gacanta ka soo gelinayaan laba waxna u samaynayaan Ethiopian Airlines-ka iyo tareen masawac ka baxa Asmara bara ilaa iyo Daredhabe markaa uu Faransiisku delegation Faransiis ah yaa duulay oo kolkaa dowladda kolkaa Faransiiska iyo Premier Minister-ka ah Guy Mollet baa loo dhigay Premier Minister-ka dowladda Guy Mollet baa loo dhigay waa intuu Frankiya Republic intuu goorti ugu soo noqon dastuurkii 18 la sameeyay Guy Mollet waxa delegation way direen waxay gaar waliba qayb badan waxay ka raaceen Djibouti Haile Selassie loo tagay Haile Selassie waxa laga yiri tareenka lagu furay tareenka ay galay Djibouti ba adigana siyaashkii bahar ku wararka baa Addis Ababa ka dhigo waxay taasina taariikhdu ahayd 1920 November labadeedii bishii November labadeedii 1920 yaa shamaan dafarka Djibouti waxa loo yaqaano amba CDA-ga amba maaragtay tareenkan Djibouti lagu wareejiyay oo la geeyay oo lagu bedelay ila waagi hore siyaashku amba bahar ku wararku tareenka Djibouti wuxuu aan jiray Djibouti 250 wixii ka horeeyay صح markaa ugu wareejiyeen suura tareenka uu u dhisin loogu dhisin tareenka masawac ka soo baxaya
ilaa iyo tegaya daranada okay laakiin diyaaradda inuu sameeyey maanta laakiin inuu tareenka ay soo celinayaan ma garanayo laakiin mid kalena jirto oo inay dadku ay fahmaan horta east africa horna africa taaba ka daacada dagaalada iyo conflictka iyo weliba dadka ethiopia waa dad arkayiga mantaliga mantalma waxbay ka qabaan waa dibi socod waa dad dibi socda horta inuu programkaasi joogayo ma garan karo oo waxa iyagu horta sameeyaan ay siyaasad ay horta kolka ku tashadaan u baabaa oo waayo waa siyaasad ku dhisan kale ku xume iyo kale ku xume arag imika maaragtay iyagu ismaaciil cumar ku xume bay leeyihiin yuu leeyahay ninkani waxay doonayaan aabi axmed iyo isayas inay ismaaciil cumar iisoleeyaan ismaaciil cumar laakiin wuxuu ka adagaya isagu dalkaas soomaaliyeed ee jabuutiba sidaad sheegtay calanka xoog saaray ina calan la helo inuu dhabar ka jabiyo shalay xitaa wuxuu soo qorayay oo la waraystay oo uu yidhi baarlamanka soo socda ee soomaaliya wuxuu noqonayaa baarlaman al-shabaab ugu bataan siduu ku ogyahay isagu xoog siduu ku ogaaday inuu baarlamanka soomaaliya soo socda uu noqon doono al-shabaab balaad gafkaa dacwo waayo wuxuu saa u leeyahay isagu kuwii rabay isagu uu isagu soo maalgeliyey buu ka waayey dadka faraha inuu ka qaado ay dalkoodii soo ceshadaan intaa buu diidan yahay qofku marka uu muddo dheerna amar uun bixiyo oo lala xisaabtamin uu xanuustaa maalintuu arko kuwuuna amar ka qaadi kara uu bukoonaya sidee waa sida maaragtay ciyaalkaba ilmihii yaraa qayrkaaya ninkii yara qayrkaaya ee jawaabta ka qaadi jirtay sanadkii hore markii vakaaska laga soo noqdaa vacation oo sanadka dambe iskoolkii la soo godo كانترا دوافكي وانا قلت بوكيلا والحراقه سيدو ما انت يديديا سياسه الامارات الدوليه افريقيا خاصه جدا واسكا ديال عرون ما مارتي سدا عرون مدوي لما كان يقول waxay doonayaan Dubai Isaiah Safwar Eritrea waa ninkaasi qabiilkiisu waa xamaaseen iminka ku yimid afgabi baa lagu wadahay way fashilmeen markii ugu horeysay ma afgabiga xitaa 69 kii ku sameeyay labadii kun mar baa la isku dayay waxa aad u diidan oo kula tartama labada qabiil kale qabiil balaaran oo kale agara guzeeya agara guzeeya iyo saraya labadaba soo raaca waa Christian labada kale isagoo xamaasi qabiilkiisa kuwaas doonay inay kula tartama meesha ay ka qaadaan laakiin kuwa muslimka majority u Sudan bay siga noolyihiin oo ELF farada Eritrea Liberation Front warqi ugu horeeyay baxay 26kii markuu hayla salaasay ilaa hayla salaasay kulkooda waxay ku heshiiyeen waa lagu wareejiyay balagada sida Hong Kong Shiinaha iyo Hong Kong inay noqdaan dal mid ah laakiin lama siistan Eritrea waaga oo maaragtay Talyaaniga markii laga qaaday 1941kii la jibiyay waxa la wareegay Ingiriiska UN ta markii 1946kii ku 1946kii UN ta oo simaadeen UN ta Soomaaliya waa ka Talyaaniga dib loogu wareejiyay ku 1949 Talyaaniga dib loogu wareejiyo Soomaaliya markaa sheegay waa koonfurta ila noorka maartay Ingiriiska caadi uu ku weysanay 49kii baa lagu wareejiyay Eritrea waa ka 250kii lagu wareejiyay laakiin baarlaman gooni iska lahaan jireen dowlad gooni lahaan jireen prime minister baa jiray odayga buku ah odayga hayla salaasa qofka inay faareen qof taariikh wax ka garanaya oo oday wuxuu ahaa fidelista oo gumaysiya waa ka 26kii ciidankiisii baa keenay qarjam afgambiye waayo kuwa noorka xamaaseenka agara guzeeya saraya iyo maaragtay Djibouti maaragtay Christian buu badan marsi wax kuwa Djibouti ahayn Djibouti ilaa waxay degaan maaragtay Gondar bay degaan Tigray bay xitaa dhexmaraan marka dadka isku dhow yihiin afkay ku wada hadlaan weeyaan waa Soomaali bay wada hiro Tigraya waa Soomaali waa Soomaalida laakiin qabiilo kala gedisan bay leeyihiin iminka magaalada u dhow Tigrayga Adigran talada magaalada kale u soo dhow Cadwa waa meesha ku dhashay Malasa Zanaawi waa magaaladiisi laakiin tuulada waxaa jirta Eritrea ku dhex taala
adle leeraa oo dadka qunaamaha leeraa baa degan marka waa hooyadiiba xaggaa ka timiday kani isaya safoorkan hooyadiina xaggaa bay ka timiday waxay yidhahdeen marka laba hooyo walaala aad u taamo hubo dadkaa sheega laakiin inay xaggaa iskaga dhow yihiin waa garanaya oo xaggaa laga hooyadii maxamed ugu dambeyn talabaadna dadku waa inay fahmaan iyo kan dadku waa inay fahmaan Eritrea iyo Tigray oo dhan ma ay kuwa noolka ah ee Tigray isku luqad maxay isku nacaan waxa waa wax taariikhi ah asbara waxay hadid fisay Djibouti barigiina xasuutin mooye dadka waqooyigu Djibouti u soo shaqo tagi jireen amba xaafadaha ka shaqeeyaan amba maaragtay gaardiyaana ka noqdaan amba maaragtay askarta ha la qaado Djibouti u soo shaqo tageen Tigray oo saas ilaa asbara u soo shaqo tagi jireen marka way ay jireen cagaamay buu jireen inkastoo Eritrea meel region la yiraahdo cagaamay waxay ka dhigtay aargooyo kale iyagu yaqaan hoos buu dhigi jireen nimanka Tigray markaasay istaan waa ku Ethiopia qabsaday marka nimankii isku facday noqdeen oo maanta hoos uma eegaan sida daraadeed taasina way jirtaa conflict amba maaragtay dhibaato soo jireen way taariikhi oo iyaga markay luus gareeyay Yohannes waa ugu dambeeyay boqorkii Yohannes loo jiray 1800 iyo soddonadii aduu 26 baan jeclahay iyo ugu dambeysay boqortooyadii ugu dambeysay Tigray maamuli jiray Abyssinia xamashida iyaga intii dambe waxa la wareegtay xamashida intii la wareegay hoos buu dhigi jiray Tigray marka noloshu markay ku adkaato asbara u carari jireen uu baratay talyaanigu guumaysan jiray oo magaalada ka ballaaran oo shaqooyin wax jiraan marka taasaan maanta ku soo gabagabeynaya haddaad su'aalo qabtid waa kaaga jawaab aad iyo aad aqooyan maxamed cawaale intii ugu badnayd ba si fiican baad u macnaysay aad baad u mahadsan tahay waan iska soo gabagabeynaya salaadan iskaga hordaya insha allah waad mahadsan tahay aqooyan assalaamu calaykum dadweynaha ku daawanayna waa salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad walaalayaalka aqooyan maxamed cawaale oo ka codsaday inuu maanta barnaamijka ilo hogaamiyuha aad buu mahadsan yahay aqooyan maxamed cawaale walaalayaal sidaad ogsoontihiin waana salaamaya meel kastaad joogtiin jimco mubaarak baan leeyahay waxaan arkayaa hablo badankeena adeeradaya oo cabdalla gadiida sidaan arkayo mamaasana in adeerayaal gabadhii anaa shiday waa gabadhin adeerteena waxay sheegaysana waa run waxa dhinacaa baabiiyey waxa meesha baabiyeyna waxa weeyaan waa cawl cabdalla gadiidkaaba baabiyey waa run gabadha ay soo qoraysa nabadiina tijalu deyoje in adeer qaxooti baa tahay waxaad joogtaa waan qaranayaa meesha joogtaa hadduu Ismaaciil Cumar Geele qabiilaan wax kugu taray orod Djibouti tag ina teeray isaaqay bafuur laba ina teeray isaaqay abara walba ka karaamad badan waxba ma tii haddaad leedahay bafuur laba walina boofar Cabdillah ta miskiin aad iyo aad walaalayaal waan hambalyeynaya gabadhii codkayga shiday dekarti haddaad leedihiin dee waa kan telefoonkayga waa kan soo hadla u jawaab haddaad karti leedihiin inay isku jawaabaan bay rabaan gabadha Badar Xaani Fariida iyay doonayaan waxaayo dhan inay u jawaabaan Cabdalla Gadiid sheeganay ilaa yaro cusbayaan hadday soo caytamtana waxay adarkaysiin oo mamaasan ka caadisiiba Cabdalla Gadiid waxa habla yar adarkaysiin gabadha Badar Xaani irina way wala khabeynay waa fulay ciisu yakum basku naagooguna yaka isku naaga ragooguna yaka rag isku dadka kale way ka baqaan cusbayanka waa waxay adarkaysiin aanay doonayaan kaar mamaasan inay marsadaan waran nin ciisana ciiso wada ciiseen nin caarama dheero odayga doqonka bafuur laba nama matalo ma intii u haysata bafuur labanimo ku daafacaysa wallahi waxba ma tiin islaanta baan wala xukunto gacanta ka dukatiin islaanta sharab nabadi TV aan baa daawanaan baa ka bixi ani kaar mamaasan leema marsado aad iyo aad u raalaada walaalayaal waa nabadi TV waa ka odayga adarkaysiin waa Ismaaciil Cumar Geele waa ninka Djibouti ka taliya waa odayga hurda habartaaba na xukunta mamaasan oo dhan habartaaba xukunta iyo ciis oo dhan habarta hadday gacanta ka dukan waayaan waxba ma waa islaanu wax ku harin oo 90 jira ayaa reerka ciis oo dhan xukunta ciise karaamad beel aad iyo aad walaalayaal waa nabadi TV khayr baan rajaynayaa ilaahay waxaan leeyahay ciise qulubtooda mid ka dhigo ilaahay Badar Xaantana hadaayo ilaahay bafuur labadana hadaayo ilaahay ciisana hadaayo ciise wada ciise nin caarama dheero waa nabadi TV oo hablaha qurux badan mijo ku leedahay siiba anigoo amaanaya naaska nuugay hawada u soo marinaya walaaldoonka special maanta walaaldoonka raabtigay
ويدي فاميلي جي وان السلامة مردي دنا وصوق إن شاء الله رجلنا وقبحنا يا شدي هره سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي سلام الله عليكم اوكي